الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وحين نكبل بين آيات التضباء من سورة النساء سورة النساء بلوغيها. قال الله تعالى إلهي بأوحد للرجال نصيب رجو قيب بكل يهين مما ترك الوالدان لبدا والد حوله أي كدنتين يا والأقربون الدتك حكتها حولها أي كدنتين وللنساء نصيب دمر كنا قيب بكل يهين مما ترك الوالدان لبدا والد حوله أي كدنتين يا والأقربون الدتك حكتها مما قل منه وحي حولها كمذا ير أو كثر أما بدن ما هيرا أما هبطنا قيب تودي لي نصيبا مفروضا وقيب عيمنا إلى هاي قدري وإذا حضر القسمة قيب تدحلك مركي جوبشوق النقضان أولو القربى دتك حكتله واليتامى إيا أقوامه والمساكين يدتك باهن فارزقوهم منه دحلك وحكسيا وقولوا لهم وحكت لهذانها قولا معروفا هذا لو ناكسن وجود جوابا وليخشى الذين كويها عبصرين لو تركوا من خلفهم هذا قلاشو ذا كجتج لهايين الدنيا ذرية ضعافا عرور يرير هذا إفك كجتج لهايين خافوا عليهم ور لها فليتقوا الله إلها يكعب صدينه وليقولوا قولا سديدا هذا التوصلنا هيدا هذين إن الذين يأكلون كوا عنيا أموال اليتامى ظلما حولها أقونت كوا حق ترك عنيا إنما يأكلون في بطونهم علوشو ذا وحي عنيا كلية وأي كقريان نار بكدي سيان وسيصلون سعيرا وحاني قلدون بول هاي النار تا مقعيد السعير الليلة آياتني وحي وصوه الرئيسة آياته دحلك آياتها دحلك qaarna si guud bay u sheegaan dhaxalka qaarna si gaar oo macnaha si way ku dhaadhacaan marka aayadan iyo aayada u dambaysa suuratul anfal wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd si guud bay iyagu sheegeen aayadan 12 iyo aayada 12 labada aayadood soo socday soo dhawina si faahfaahsan bay dhaxalka iyo arrimihiisa u tilmaameen iyo aayada u dambaysa suuratul nisaa saddexda aayadood marka ayadana wuxuuna ka waramaysaa inay simeeyeen rag iyo dumarku xagga qaadashada dhaxalka oo meesha ay ka baxday wixii jaahiliyada la oran jiray ragun baa wax leh oo waxay oran jireen maalinta reerka la soo weeraro ninka waran iyo gaashaan iyo leeb iyo qaansa iyo farasita ee cadawga reerka ka dhicinayo baa cunadiisana leh laakiin maalin la ishelay qof aan waxba taraynin oo meeshan ama ka barooranaya ama jiida ka haya oo ciyaal iyo dumara dhaxal waxba kuma leh الغنم بالغرم بيورن jireen dhibkiyo dheefta wada socda ninka dhibta qaabilayun baa dheeftana wax ku leh falsafadoodu caynkaas ah labadiiba gaar buu ilaahay u kala saaray wuxuu raggii iyo dumarkii mid waliba wuxuu wax ku leeyahay ehelkii iyo waalidku wixii ay ka dhinteen ahaa dhaxal si guud baa loo sheegay marka sida loo kala leeyina aayadaha soo socda 12 ay ku faahfaahsan raggii wuxuu leeyahay wixii ay ka tageen labada waalida dhaxala ama dadkii xigtada ahaa dumarkiina saasoo kale leeyihiin mimma qalla aw kathura ama ha yaraada ama ha badnaado waa la sii adkeeyay nasiiban mafruudan waa qayb cayman bilayno ilaahay caymay subhanahu wa ta'ala wuxuu ilaahay caymayna rasuulna ma faragelin karo rag kalena iska badaaga ayad hore inta soo sheeg ayada labaad waxay ka waramaysaa waxay sharciyeynaysaa in wax la siiyo kala yiraahdo ag jooga saylada xooluhu waxay leedahay dilaal iyo macalqabad iyo ag jooge Soomaha meesha kaliya ag jooga in wax la siiyo la sharciyeeyo waa halka marka qofkani wuxuu soo xaadiray ehelka ahi ama agoontii ama dadkii baahnaaba waxay yimaadeen reer hebel meel ay ku qaybsanayaan dhaxalkii waalidkooda ama ehelkooda ama mooda ama noola mid kastaba ha ahaado xoolii noola iyo kaashkii mid kastaba ahaado markay yimaadaan nagta loo xarfin maayo ingeegana loogu xiiri maayo la iskana eri maayo laakiin waxa la isu raacinayaa hadal wanaagsan iyo gacan wanaagsan labadaas la isu raacinaya marka wixii loo helana waa loo dhiibay dhaxalka waxba kuma lahayn intaasaan idin qorsheynay qaato qaybsada
رالنا أهاوا وقولوا لهم قولا معروفا دي شرعي أهم بيدان وحبوا هلين إن كستين وسحقناه دي أنت صارنا نقول دين قرنا رالي هذا دي سود دعي حين تسكيا ليس عوري كفوي وأكتوجه هالكاسو الشرعي لكن أكتوجه ما لك المتر ني قفان هول قبان قفك حوق يسي حوريس وحكو قادنا يا لكن هدي أنا دامدنا قبان وحبكم الدودي كرو يتنوع إحسان يسمى فرو وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين صدح راق مركي مادان فارزقوهم منه أي من الميراث حالك وحكستي يقول الله قولا معروف آيات كلاتي ما كسيحك waxay ka waramaysaa qofkii sii dhimanayay ee dardaarmayay qofka ag jooga doorku leeyahay waa qof baa sii dhimanaya wuu dardaarmaya waxa laga yaabaa inuu dardaaranka qalooc geliyo dadka ag jooga doorkay leeyihiin waa maxay waa tilmaamahan iyo toosintan marka ilaahay wuxuu yiri kuwa qofka u baqi lahaa caruurtiisa ka dambaysa markuu dhinto ha u baqo caruurta dadka kale oo cadaaladda ha ilaaliyo tala wanaagsan iyo dardaaran wanaagsan ha siiyo qofka sii dhimanaya ha yiraahdo hebelow ka daa caruurtaadii ha ka wada bixin mid qofku waxa la yaqaan markuu sii dhimanayo adduunyada uu ka quusto eelkiisana uu ka quusanaa dabeetana wuxuu leeyahay aakhira loo socdo wal allaysanayaa adduun waxa lahayd wada bixi waxa la waxan adduun la masaajida lagu darabo odhanaya hebella ay isnaceen buu leeyahay hebelka inta hal la siiyo kaana inta hal la siiyo wixii baa uu kala diraya saxaabiga la oran jiray Sa'd ibn Waqas baa xanuun ku dhaco aad buu xanuunsanaya sakaraad weey nabiga soo booqday calayhi salaatu wasalaam dad kale oo dhaxlayaana ma jire bal waxayga ma wada bixiyaa buu nabigu ma yaabuu calayhi salaatu wasalaam kada kolba sidoo lahaa markii dambe saddex dalool buu ogolaaday inuu dardaarmo athuluthu wa thuluthu kathiir boqolkiiba 3 kaasaaba badan buu ابن عباس وكيلها حتى دردارن كإن لقى يرى ثلث إلى ربعية ما لها لقى لقابان شعلي قدام النبي يقولوا بدين مركوانو هذا وردت كاني حديث كامركا انت الناس صار لافين وحكوا على النبي عرورت هذا إن تساعد وكترت يجوا مع القبان وأسطران وحي كفي عنته إن إفك كجتك تيجوا فقراء يتكففون الناس ضدك دور سنة حتى هذا حس صدقة وجوا بحس عرورتي ند بالشدة تكسر ديسي دور ستو بحد كوريس marka sadaqa iyaga ku tahay taa way macno marka waxaad leedahay qofka saas oo kala sameeyay hebelow ka daa inta bixi caruurta u daa xaaska ka hawran waan furay waxaan cadaalad darrada jooji ayaad oranaysaa caruurtaada wixii aad jeclayd in loo sameeyo caruurta ninkana jeclow inuu u sameeyo waa sidaa weey waxa kale culimada qaar kood ay leeyihiin dadkii awsiyada ahaa lagu hadlayaa ee mas'uulka ka ahaa agoonta ee xoolahooda cuni lahaa ee ku xad gudbi lahaa ayaa ilaahay u leeyahay kuwa agoon waxooda gacanta ku haya ilaahay ha ka baqeen oo hadal wanaagsan ha yiraahdeen oo agoonta waxooda ha u ilaaliyeen sida oo caruurta dadka ha wanaajiyeen siday u jecel yihiin caruurtoodaba markay ka dhintaan dabadood in loo samafalo loo wanaajiyo aan ku soo noqono wal yakhshaha cabsadeen ilaahay ha ka cabsadeen الذين كوي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا من خلفهم كداشو هذا معناه دبدو هذا الدنيا ده حتى كجت تجي لها عرور يرير انت يقول الانسان حتى يفك كجت تجي لها عرور يرير خافوا عليهم وعبسن لها قفك عرور تي سيرير مركو كرد من يا وعبسن لها دي تدد كان هو عبسده ووحو عرور تي سلتش عليها هي عرور تدد كان هلا تشعلاده وواحد عرور تدد كو هيسو داود قاليها كعنين كعرورتي سحمين يا سيدي من يانا دردار وناكسنسي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلهي يا كعب صدين وهذا الوناكسن هاي إلهدين وقف كان دردارا كحميني هذا الفيعان كو إلهدين أقونت هذا الوناكسن كو إلهدين عدالتها إلهين وي سيدا سينا قرن يسايو دور والله بدا قف ولا قول هذا سي أرقب أرنتن كلنا إلهي وقه الله toban aayadood baynu soo marnay mid mooyaane ta u horeysa mooyaane marka dib ugu noqoto 8 ama 9 aayadood kaleba mid walba agoontii baa soo galaysa dhaxalkooda siiya meherkooda siiya kad siiya marka arintaas si adag baa looga hadlay arintii agoonta kuwa xoolaha agoonta cunaya alladina yakuluna amwal al-yatama dhulman agoonta xoolaha kuwa cunaya waxay u cunayaan buu Ilaahay calooshooda naar
saciiraanay geli marka cunitaanka oo qura maaha waxa la diiday waxaa had iyo jeer loo isticmaala maalka wuxuu u badan yahay maxay cunitaanku u badan yahay laakiin hadduu dad siiyo ama dhar siisto ama daara ku dhisto waxa weeyaan waa la mid uun iyaduna waa la mid inamaa yaakuluuna fii butuunihim calooshooda waxay cunayaan ee halkaa hore ilaahay uhi dulman horta gardarro qofka ku cunaya weeye qofka eedaysanahaya laakiin qofka xaq ku cunaya ama wax u qabtay ama u shaqeeyey ama had iyo jeer u adeegaya dee kaasi kuma jiro xaq buu ku cunay lidaalik baa qof kasta oo agoon ag jooga waxaa la isweydiinayaa si uu wixiisu xalaal ugu noqdaan muxuu u qabtay horta agoonka haddaa imika fatwo raadsan lahaydeen fatwadii wataa qof kasta oo agoonka agdhow ama marti u ah ama gurigiisa uu joogo ama agoonta hooyadood qaba ama madax u ah ama meeshaa doonaysa mari waxa weeyaan muxuu u qabtay agoonka hadduu agoonka wax u qabanayo iskana dhaafi kari waayo sidaa hore loo soo sheegay wixii waa inaanu macruufkii dhaafin in la soo sheegay oo mushqaayad wax u dhigma haddaanu se waxbaba u qabanaynin ha iska joojiye walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan taa wanaagga badana ilaahay uu sheegay waxa weeyaan waa inaad isagii wax u daysa ama aad intii macruufka ahayd maalan ka soo qaad nin baa dhintay oo xaafadiisa waxa jooga dad badan waa saynu isaga yar badan nahoo dee dad guryaha wada jooga oo isxambaar oo wada nool baynu nahay 10 qof baa gurigiisa ayaa jooga waa caa'iladiisa oo wuxuu ka bixiyaa waxbarashada oo dharka oo dhuuniga oo waa reer hebel baa la jooga dee meeshii buu safaarad ka yahay waa hay-atul iqaasa miidhane allah inaga abaal mariyee marka hay-atul iqaasa isagoo ah oo dadkii wax siinaya ayuu dhintay kama tegayaana baarkinkoodii bay iskaga jirayaan halkii bay ka cunayaan agoontii oo wixii ka wadaya islaantiina waaba laga yaabaa inay xishooto agoonta dhashayo ay tidhaahdo markuu dhintay bay ehelkii kale eridayaan lagu odhanayna stiil dabeetana nagtay ku haynayaan wixii agoonta waxa la joogi kara un ilmaha kii wax barayay tii u shaqaynaysa sida jaariyadoo kale tii xanaanaynaysa iyaga ee markaa adeega u ahayd laakiin qof aan waxba u qabanayn uu ka dhaqaajinaya qof aan waxba agoonta u qabanayn waa ka tegayaa ilaahay baa wuxuu ihi dee waa intu khaaliduuhum baalay haddii aad markaa isku darsataan maxaad ku darsatuun wey wax miyaad ku darsatay maya dee haddaba magaalayso koladaan waxba ku darsan waka qaacidadaasay leedahay marka dulman tahay halkaas waa qofka aan waxba u qabanayn calooshooda naar bay u cunayaan oo marka wax la cunayo miyaan calooshuu loo cunin maya wixii la cunayba calooshuu galaaye laakiin mubaalaqa iyo ta'kiid baa la yidhaah iminka haddaad tidhaahdo shaygaa ishaydaan ku arkay ama dhegtaydaan ku maqlay macnaheedu waa inaad aada u adkayso waad kusii xeel dheeraanaysa haddaad tidhaahdo war waxa iska kala daama calooshaad u cunaysa macnaheedu waad badsanaysaa weeye kuwa badsaday maalkii agoonta naar bay ku diseen maalinta qiyaamahana calaamadihiisa waxaa ka mid ah marka maxsharka la yimaado iyo goobta addoomaha lagu soo ururinayo naarunbuu daacaya walalalac olol baa markaa afka ka soo boodaya ilaa wixii baa naar noqdeen idan mustafaadaadka dhowrkan aayadood waxaa ka mid ah islaamku dumarkiibuu aada ugu dadaalay ikraaman lahunna wa ibطaalan liamri اljaahiliya isagoo arrinkii jaahiliyadana buriyey iyagana maamuusaya rag waxba looguma dhiibi kara baa layihi dumarkuna kooday leeyihiin ragguna kooda waa aayadda u horeysa dhaxalka la mutaysanaya istixqaaqu lmiiraath laa yundar ilaa qilatihi fayumnac walaa ilaa karatihi fayustacdar dhaxalka marka la qaybsanayo cid la siinayo yaraantiisa la eegi maayo oo la odhan maayo intan maxaynu ka qaybin waa iska qaata intiisa weyna dumarku heleena la eegi maayo gabadh baa intan qaadan karta la odhan maayo waxaa laga faa'idaysanayaa mima qalla minhu aw kahura mararka qaarkood bay dadku idhaahdaan oo intan maxaynu ka qaybinaynaa iska siiya dadka wuu dhintay soo maaha kabihiisa bixiya oo kutubtiisa bixiya oo dharkiisa bixiya oo waa wax haddii la isku celceliyo lacagta hore noqon laha mimaa qalladuu soo galaya laa yustaskar lama yaraysanayo wixii weyna lama badsanayo lama odhanayo ma dumarkana intay waxaan qaataan dad kale ula tegaya maya inta lama wada tegi karaysa wixii ilaahay uu siiye wuu soconaya muraacaatu mashaacir alaakhariin min axsani akhlaaqi almu'miniin dadka dareenkooda in la ilaaliyaa waxaad u weyn weeye walyaquuluu qowla sadiidan
وقولوا لهم قولا معروفا مر والبا إلهي وحو الله أفكا وناجية وحا لكن كسي وناكسن أف معان إيا قعان معان وإسراعة قعنتي هدي سخي تاي أفكينا سخي هالنوضو أف ديخسية إيا قعان ديخسية أبدا صالة اسكو دريا سيدا إلهي ونقول برارجيه سبحانه وتعالى لتسعد القلوب ولتحفظ كرامتها سي قلوب تددكو أي راحيستون لو دبين وعين كفهمنا وإذا حضر القسمة آيات قاعدة أورانيسا من اتقى الله في أولاد الناس سخر الله في أولاده من اتقى فيه قفك ددك أوبت كودا إلالية إلهي كوي سوحو دراء عدو إلاليسا هذا أوبت ددك وحودا عنطاد حميسانا كواغا ددك لغو سلدا وحودنا والغا عنا وكان أبوهما صالحا الأمر مطلوب بالعدل مطلوب حتى في أصعب الأحوال عدالة مر والبا waa laga maarmaan حتى xaaladaha oo adagna ha ahaato qof sii dhimanaya lagu hadaynin dardaaranka u dhiib qof sii dhimanaya dadkeena waxay dhaawaan iska daa sakaraadkii baa haya maxaad wax uga sheegay naftiga waa ku urursay Umar ibn Khattab iyadoo ka sii baxayso ayuu nin dhalinyaro maradiisa jiidayo hayruufaya ayuu hoosta uga gacan raadiyay wuxuu dhaadeer gacan haday warkaale kaale waa bal guntiga kor u qaad waanu iska tahayaa uu sii dhimanaya marka cadaaladda iyo macruufka iyo mar walba waa lagu dadaalaya ma soo aroorin dadka xoolahooda oo la cuno xumaanta ay leedahay waciid ka adag ka agoonta waciidaadiya aad u adag weeye intaasoo aayadood baa marka ilaahay uu soo celceliyay subxaanahu wa tacaala si kale haddii loo eego wuxuu ilaahay ku shabahay xoolihii xaaraanta ee agoontii la cunayay inuu la mid yahay dab dabku waxa hareerihiisa u leefaa waxalla waxa hareerihiisa u hafaa u cunaa xaaraanta iyo xoolaha agoonto aad cuntaana xoolahaaga kale hareerayaalay cuntaa hada waxa isleedahay wax ku biiri Soomaha khabiidkii iyo tayyibkii baad isu keentay waxaaga iyo madhun baad arkaysaa haddaad riba ku darto waxaagina wuu madhay haddaad xoolaha agoomeed ku darto ama wixii danta guud waxaaguna wuu madhan doonaa marka haddaad doonaysa inuu baaqi ku ahaado oo uu ku barakoobo dabka ku fidaya gubaya ka ilaali halka ay iska shabahayaan ba halkaas wallahu subhanahu wa ta'ala